السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود هذا جنال كفيل سنة ومرق اوفيشال. فضلا هدي تاي بوقشة كود فضلا سبسكرايب نصار كم بليل كان فرصيها ونقطة داود كود مقالة هالكن سوق لنا. هذا الكسود هو مقال حسن. قلبت وحنوق عزو من جنال ك أبوانة الدادير نعيميري. نعيميري كسود هو أدوك بلاوي مقعد استحن داود يشكو حرم مرق اوفيشال. وهرين ومحسن تولك حسن وحن سلام يا دمان انت جنالك كحرن مرق اوفيشال اصحابتي سمعان الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مغعيغو ونعيمه محمد عبد الله ما شاء الله نعيمه ما دام اتى ابوان داير sidoo kale qofbo wuxuu interest oo suubiya oo koofina oo ku dheeriyahay saal camal aan ahaanteeda waxaan jecelahay saacatirada majaajilista sidoo kale waagi ayara waxaas la xiisay jiray sidoo kale maadaama aad tahay abwaanad goorma ay kugu dhalatay inaad gabi asuubiso sidoo kale maxaa la abwaanadii ka horeeyay wixii ka dibay interest aad saarto aragtay inaad wax abuuri karto oo eray isku keeni karto wallaahi ma sha Allah waa su'aal aad u wanaagsan anigu markasta waxaan ahaan jiray dadka wax iska qorqoro laakiin mar walba interestigaygu wuxuu ahaan jiray inaan waxaan aniga leeyahay wax aniga aan soo saaray inaan arko maxay ahaydee xagga goorkay ugu dhalatina anoo iska dhaxda waalnay baan arkay laakiin ma xasuusto waxaan filayaa dugsi sare dugsiga dhexe xagga toddobaadkii markaas meelaha saamaray waqtigaas aan xasuustaa inaan fikradahayga qaar ka mid inaan soo madhin karo ama wax aqrin karo aan is arkay laakiin ilaa ay haddana aan waqti siinin oo aan la ahay waqti aan wax ku soo bandhigo wax walba waqti bay leeyihiin kulli waqtigooda baa dhimanaan filayaa laakiin ka hor intimaan ma siineen waqtina ma siineen ma sha Allah ciimo maadaama aad sheegtay inaad aragtay inaad hal abuur leedahay sidoo kale aad gabaa curi karto sidoo kale qof ku dayda saal camal hadu fanaan hebel oo maanta soo caan bax misna heeso isagu leeyahay oo keena ka hor waxaa jirtay heeso oo hore oo fanaaniin ka horeysay oo qaaday jiray oo xeesay jiray interest intaad aad gabi aad leedahay aad suubaneen abwaanade intooda badan gabayadooda aqri jirtay sidoo kale aad ku dayay jirtay waxaan ku dayin jiray ninka la yiraahdo abwaan hadraawi waa siinaan aad u salaamay iyo abwaan xaaji aadan afkalooc oo gabayadooda badan aad lagu soo qaato iskuulada sida heerka waliba markaan fonfoorka maray si badan aan gabayadooda waan aqrin jiray mana ahaan jirin dadka ku dheeraado inaan gawar aqriyo inaan waqti si ma ahaan jirin laakiin marba wax ba iskaga ka soo dhacan waa iska qori jiray ma sha Allah sida sheegtay abaan hadraabi iyo abaan kala ayaa ku daysata sidoo kale qofba wuxuu leeyahay hal ku dhig iyo sidoo kale wuxuu ku soo caan bax dunida inta joogo waagaadii iskuulka sida elementary sidoo kale primary secondary ma ahayd daawarada iskuulada lagu qabto qofba waxa loo yaqaanaa qofka abaan dhinaca gabayada ninkan dhinaca khudbada kan xagga riwaayada midkan dhanka shaatirada xagee ku fiicneed marka dhankaada waaga xilligaas ma ahayd qof xagga barnaamijka fasalada soo martay oo kala duwnaa qof oo macnaa dhanka oo gabayada xiiseeya maadaama aad tahay abwaanad dabcan markasta waxaa la isku qorayaa ama xagga daabuurka waxaan fiirin jiray xagga gabayada aniga waxaan leeyahay aniga aan qoro aan soo saaro ima gabayada kale aadka u qiirada badan ee quseyso qof waliba uu hiigsale inuu aqriyo oo wax ka barto waan aqrin jiray ma sha Allah gabayadu waa mar walba waan jeclaa hubkaygu way aheeday inaan mar abwaanad noqdo haddana abwaanad mi laakiin wali hal abuur baan ahay hal abuur tahay ma sha Allah abwaanad naciimo waxaan ku weydiinaa sidoo kale waxaan filaynaa su'aalaha ku badi hore waxa ahayd abwaaniyaasha mid ku daydo gabay hore loo soo qaado wax ka bedelo maanta ma leedahay gabay aad qaas ku ah oo aday production aad soo saaratay niid ahaantaada misna qof qiso ku saabsan mise nafsadaada ku saabsan dabcan way jiraan gabayo aad u badan ma sha Allah gabayga ugu horeeyo nafsadaada ama ku saabsanaada ama macnaha qiso kale ama qof saaxiib ama wax kastaba gabay kasto la qaaday wuxuu leeyahay qiso way fahantaa malena gabayga hadda macnaha interest ku saaran maanta gabayadaada mid kamid ah
wallaahi maasha allah horto qof walba wixiisa ma kala jeclaa lacagtaada hadday 30 tahay $100 tahay adaa iska leh marka aniga waxaan aniga qoray way badan yihiin ma ii kala saarno aad u jeclahay laakiin gabay oo aan waxa aad u jeclahay nafteeda aan ka hadlayo ani nafteeda uga hadlaya maasha allah waa ognahay lacagtaada ha badnaata ha yaraata inay lacagtu ay tahay laakiin lacagti iyadoo lacagti oo bidaar asal si tahay la kala sii jecel yahay baabanta maleena gabayadana sidoo kale waayo gabaya adoo wada leh gabi kalaba gabi qasi kugu imaaday gabi oo si kala farxad kugu imaaday oo markaas kugu soo dhacay niyadaada sida isku mid ma marka ku soo dhawaab adoo macnaa noo tirinaysa gabayga oo nafsadaada sida sheegtay maasha allah gabayga nafsadeeda waa ku soo dhawaanay waan akhrinayaa waxa la yiraahdaa gabaygaas nafsadeeda uga hadlaya qof kasto anigu kala ah ama dumar aan waxaan rajeynayaa inuu naftiisa taabanayo laakiin waxa la dadku wada goomayo qof batiisa darajay sidaan ayuu dhacayaan waxaan ahay dareenkiyo dunida tii horseedee darajeysa aadmiga daada maanta joogtee xoolo daajinaysee daadahaysa aayaha dadka ee xin baan ahay dhaqankii hidaha iyo waxaan doodsanahay diintii islaamkiyo garaad dumarnimo xambaarsan waxaan beegsadaa rajadayda guudiyo inaan caadaas dego xidigaha dushoodiyo ka adeegtaa duruuraha ruux dagaal ah ila galay ila doonay ceebaha timnahayga uma furo dowgu asaga maray kuma eegta aniguye waxaan beegsadaa samir iyo dulqaad badan ruuxa ila doonay nabarada damaaciga dareenkayga dhaawaca lurkaygana ku liibaana kuma deersho oo cidna uur ku qabashiyo cugdadii uma duudo ruuxii xanteediyo ku diirsado xumaantayda dusha kama toogan abadoo waxaan duco iyo waxaan daris kala dhigaa nolol degal nasasho leh dadnimada aadanaha iyo dadka ii gala abaal ayuun baan dareemaa danahooda gaarka ah inkastoon insaan ahay dabuubtayda hadalkuna leeyahay dhaliiliyo dakhar aadana waxyeeleeya intaan ogaaliyo leeyahay garaad diiran dulmana iyo maa noqon ruux dadka kala dilo ku diirsada dhibtoodee waxaan damqadaa markii dareen soomaalinimo dhaqan dhiig diin ruuxaan wadaagno danta garbaduub u hayso ruux dacalka haayiyo wax daneeya ay jirin dunida lubta uma dhamee kelmadaha walaalnima dadka laba mideeyee hadal dacal qaraar iyo mid durugsan maan oran oo waan dadaalaa dad qofba hadal dabacsaniyo wuxuu doonaa libintu dadku wada gob maahee qofba tiisa darajee waa kaa gabayga inta soo koobiya maasha Allah waxa ka gabay abwaanada daawadayaasha ku xiran marqo official sida u jeedin abwaanada yar hadii hore aad arki jirteen midaajiliista sidoo kale riwaayad jaalanti wixii la mid ah hadda abwaanada janaalka ku soo biirtay waana arki doontiin gabaygan waa hordhac leh gabayo kasii diyaarsan oo abwaanada maanta kidisa meesha uu soo casuumay iyadoo soo diyaarsay ma doonta insha Allah gabayo kan kasii hay maxaa balan qaadaysaa daawadayaasha ku xiran marqo official baadaf muruq family ما شاء الله waxaan u balan qaadayaa muruq official inuu idin keen doono waxaad ku nasataan waxaad ku faraxdaan iyo waxaad isku madadaalisaan intaba insha Allah bidilaahi kariim sidaas iyo nabadgelyo inta ku kulmayna video mid ka lamid ah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh